ururka horumarinta caafimaadka waxbarashada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer ee Sahal Youth Organization ayaa maalintii shalay ahayd soo qaban qaabiyay ciyaartoyna dhex maraysay ciyaartooyda degmooyinka Dhoqosho iyo Qorligud kaasoo muhiimadeedu ahay sidii dhalinyarada loogu dhiirigelin lahaa ciyaaraha isboortiga ay uga fogaadaan waxyaalaha xun ee kooda ka yihiin balwada ana ciyaartoyna ay ka dhacaysay garoonka Lamsey Stadium ee magaalada hawshadeeda ka soo qayb galay maamulka ururka Sahal Youth Organization wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Togdheer uqaal iyo dadweyne tiro badan oo ka kala yimid xaafadaha magaalada Burco waxaana ciyaartoyna ay mid wanaag ay labada kooxood soo bandhigayeen ay guushu hal iyo eber ku raacday kooxda ku ciyaaraysay degmada magaca Qorligud ka hor intii la guddoonsin koobka iyo biladaha ay kooxda ku guuleysatay koobkan ayaa halkaasi waxa ay ka soo jeediyay gudoomiyaha ururka Sahal Youth Organization Cismaan Xiis Faarax oo sheegay in ururkan yahay mid ka shaqeeya horumarinta arrimaha bulshada gaar ahaan dhalinyarada agaasimaha ururka Sahal Jamaal Siciid Bandhiir ayaa isaguna sheegay in ururku ay yahay diiradda saaraya u qabashada dhalinyarada isagoona mahadnaq ballaaran u soo jeediyay ururka Somo oo ka dhisan dalka Norway oo sheegay inay ku soo deeqeen qalabka kubadaha ee la guddoonsiiyay maanta kooxaha halkan ku ciyaarayay waxa kale oo iyana halkaasi ka hadlay isduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer Cabdikariin Muraad Caaqil Wali Cumar Kaarshe Kayse Yuusuf Cilmi oo kamid ahaa hawlwadeenada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer tababarayaasha degmooyinka Qorligud iyo Dhoqosho iyo dad kale oo badan dhamaantoodna waxa ay soo dhaweeyeen waxqabadka ururka Sahal Youth Organization ee gobolka Togdheer iyagoo ugu baaqay ururada kalena inay iyaguna ku daydaan ururka Sahal geesta kalena gudoomiyaha degmada Dhoqosho Maxamed Cabdi Toob oo nala soo xiriiray ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay ciyaartan dhex maraysay degmadiisa Dhoqosho iyo degmada Qorligud una hambaliyay kooxda ku guuleysatay koobka isagoo gudoomiyahani tilmaamay in degmada Dhoqosho ay haatan ka socdaan hawlo horumarineed oo badan sida oo ay ka mid yihiin wada banayn iyo barnaamijyo kale oo badan ugu dambeyntii waxa halkaasi abaalmarinay iyo koobkii ay ku guuleysteen lagu guddoonsiiyay kooxda matalaysay degmada Qorligud ciyaartan ay ka mid noqonaysaa dadaalada ay wadaan ururka Sahal Youth Organization ee gobolka Togdheer kaasoo in badan oo kamid ah indhaha bulshada soo jiitay Cabsaaq Faarax Cabdilaahi Cabsaaq Nakruma shabakada caalamiga ah ee Burco Online magaalada Burco.